Rag oo dhan waxa ay jecel yihiin inay yeeshaan soo jiidasho. Qof walba wax buu ku wanaagsan yahay, waxna waa looga fiican yahay. Nin baa deeqsi ah halka midka kaleetana uu naxariis badan yahay. Laakiin ragga leh shanta dabeecadood ee soo socda oo keliya ayaa lagu sifayn karaa inay yihiin kuwa ay aad iyo aad u jecel yihiin dumarka Soomaaliyeed. Kow mid ka mid ah ragga ugu soo jiidashada badan ee haweenku ay daneeyaan waa ninka mar walba u taagan taakulaynta iyo awoodsiinta dumarka. Marka aad ninkaasi isguursataan gabarey, wuxuu meel walba la taagan yahay ammaantaada, adigoo la jooga iyo adigoo ka maqanba labadaba. Wuxuu ku dadaalaa inuu xaqiijiyo sidii aad ku gaari lahayd ujeedooyinkaagii dhinaca horumarka noloshaada adiga kuu gaarka ah. Haddii xitaa aadan marka hore aqoonsanin, marka aad nolosha wadaagtaan ayaad ku fahmaysaa dabeecadaha cajiibka ah ee wiilkaas uu leeyahay. Labo, dadka intooda badan marka ay isku dhacaan waxay xoogga saaraan sidii ay guusha xaggooda u raaci lahayd, ama iyagu ay u gar qaataan inay guulaystaan. Qof walbana wuxuu daneeyaa inuu xaqiijiyo inuu yahay midka saxan oo laga gardaran yahay. Laakiin ragga aad ka sheekeynayno waxay eegaan cadaaladda marka uu khilaafku yimaado, waxaana taasi u sii dheer naxariista iyo garashadaba. Inta badan raggan waxay ka hortagaan ismaandhaafka iyo waxyaabaha horseedi kara dagaalka reerka dhexdiisa ah. Saddex, wuxuu mar walba ku dadaalaa ama uu ku fahansiiyaa ama uu fahansan yahay wiilkan rabitaanka gabadha xaaskiisa ah, ama uu xiriirka la wadaago, uuna ku taageeraa gar iyo gardaro. Tusaale ahaan, marka ay rabto waxa ay ka xishoonaysaa, isla markiiba waa uu fahmayaa, iyadoo aanan weydiin ayuuna ku dhaqaaqayaa arrinka. Isaga qudhiisu wuu haweenaydu waxa uu u muujiyaa oo u sheegaa waxa uu doonayo iyo waxa ku jira niyadiisa oo waxba kama qarsado. Arrinta kuma jirto wax shuruud ah, kamana ahan abal raadin, balse waa mid ka mid ah dabeecadaha dahabiga ah ee Ilaahay wiilka uu habeeyey ama uu u dhaliyey. Afar, waa qiimaynta xiriirka. Ninka boqorka ah ee ay dumarku jecel yihiin waa mid ka mid ah xiriirka guurka ama jacaylka ee daneeya. Marka la isbarbar dhigo xiriirka iyo wax kasta oo kale, wuxuu door bidaa wiilkan inuu xiriirka sii jiro oo uusan burburin labadooda wax ka dhexeeya. Marka qaarkood oo ay khilaaf uu soo dhexgalo lamaanahan, heer aad u xun la gaaro, wuxuu isku dayaa in uu xal helo inta aan la kala tegin. Dabeecadda shanaad ee dumarku ay jecel yihiin oo ay raggu ku doortaan ayaa ah isfahamka. Dabeecadaha ninka ay dumarku jecel yihiin waxaa ka mid ah in markasta inuu ku wanaagsan yahay dhinaca hadalka, taas oo sababta isfahamka lamaanaha. Wuxuu yaqaanaa sida loo abaaro ama loo sharxo qodobka uu ka hadlayo wiilkan. Hadalkiisu waa uu cad yahay, waana mid ka mid ah waxyaabaha u sahlaya in lamaanuhu ay isfahmaan. Inta badan wuxuu hadalka bilaabaa ama uu ku bilaabaa dulucda, isagoo aan waqti ku lumin dood dheer inuusan gelin iyo dhacdooyin hore oo uu soo xasuusiyo. Nin walba oo aan dabeecadahan lahayn waa uu iscaburiyaa inta ay lamaanuhu uu ku guda jiro dagaalka dhexdooda, waxaana lamaanayaashu inta badan ay guulaystaan marka ay sameeyaan isfaham si uu u noqdo mid soo jiidan kara dumarka. Dumarka Soomaaliyeed marka loo eego dumarka kale adduunka, waxyaabaha hibada ay u leeyihiin waxaa ka mid ah shanta astaamood oo ay raggu leeyihiin oo hadda aynu sheegnay, kuwaas oo ay ku qiimeeyaan ragga. Warbixintan ayaa waxa ay sidoo kale hoosta ka xariiqaysaa in dumarka Soomaaliyeed ay aad iyo aad ugu nugul yihiin ragga leh astaamahan hadda aynu soo sheegnay. Gabar ma u la siiyaan, alla hubey qurux lagu manaystaa, alla hubey
jirto الله هوبي هوبي هوباليغ الله هوبي هوبي هوباليغ الله هوبي المعقول ومغن الله هوبي مرتي هذا اليقان الله هوبي ما موساد مغن الله هوبي ديحيغ مغدو الله هوبي ملقي يا قبني الله هوبي قبن مولسيا الله هوبي هوبي هوباليغ الله هوبي هوبي هوباليغ الله هوبي هوبي هوباليغ الله هوبي هوبي هوباليغ الله هوبي ملقي يا قبني الله هوبي قبن مولسيا الله هوبي قروح لغو من استاي الله هوبي مقصن لغو ما جيرتو الله هوبي هوبي هوباليغ الله هوبي هوبي هوباليغ الله هوبي المعقول ومغن الله هوبي مرتي هذا اليقان الله هوبي ما موساد مغن الله هوبي ديحيغ مغدو الله هوبي ملقي يا قبني الله هوبي قبن مولسيا الله هوبي هوبي هوباليغ الله هوبي هوبي هوباليغ الله هوبي هوبي هوباليغ الله هوبي هوبي هوباليغ الله هوبي ملقي يا قبني الله هوبي مرتي هذا اليقان الله هوبي قروح لغو من استاي